halkan ayuu ka bilaabanayaa filimkeena maanta. Isaga iyo saaxiibtii waxay dib ugu soo laabteen gurigii, waxa uuna keenay gabadhan gurigeeda. Halkan ayuu ku macsalaamaynayaa saaxiibtii, laakiin markiiba waxa maqlaya codkooda aabihii dhalay gabadhan, kadibna waa uu xanaaqaya ilaa uu guriga ka soo baxay. Boyfriendkeedana aad ayuu neceb yahay, isla markiiba wuxuu arkayaa mootadan meesha taala. Waa uu yaaban yahay, waxa uuna waayayaa labadii qof ee halkan joogay. Waa uu soo baadigoobaya, waxa uuna soo raadinayaa gabadhiisa iyo saaxiibkeed, laakiin markiiba maamadii ayaa kaxaysa, kadibna waxay la soo baxaysaa baaskoolada. Ay soo dhaqaaqaysaa iyadoo aad u baqsan. Gurigii ayay ka soo baxaysaa iyadoo aragtay mootadan meesha cidlada taala. Gabadheeda ayaa la hadlaysa, laakiin waxay ku leedahay aamus, gurigaaga gal, qolkaagana ha ka soo bixin. Waa ay soo dhaqaaqaysaa, waxayna fiirfiirinaysaa banaanka. halkan maraya ay arkaysaa, waa ay ku soo dhawaanaysaa ilaa markii dambe saaxiibayaal uu bahal aad u weyn u qaatay. Halkaas ayuu bahalkii ku jiitay, kadibna gabadheedii yareed ayaa baqaysa, waxay maqashaa codka hooyadeeda ilaa markii dambe ay ka aragtay daaqadeeda gadaasheeda bahalkan weyn harkiisa oo maraya daaqada dhinaceeda. Subaxnimadii markii la gaaray saaxiibayaal, gabadhan waxaa lagu magacaabaa Lizzy, waxayna ka shaqaysaa kaynta xayawaanka, waana cilmi baare ku takhasusay baaritaanka xayawaanada noocyadiisa kala duwan. Kayntan aadka weyn ayay ka shaqaysaa oo ku jiraan xayawaano aad u fara badan. Lizzy waxay ku jirtaa shaqadeedii, kadibna waxaa soo wacaya booliska, waxaa loo sheegayaa in loo baahan yahay iyada. Waa ay ka soo baxaysaa xaruntii shaqada, kadibna gaarigeeda ayay soo qaadanaysaa iyada iyo saaxiibkeed, waxayna u socotaa booliska. Waa ay soo dhaqaaqaysaa, waxayna u imaanaysaa meeshii uu falku ka dhacay si ay baaritaan ugu samayso goobtan. Lizzy waxaa soo dhaweynaya ninkan oo haysta booliska magaalada, waxaana lagu magacaabaa Brink, kadibna waxa uu tusayaa meydadkii uu bahalku cunay. Lizzy aad ayay u yaaban tahay, waa ay soo fadhiisanaysaa, waxayna baaritaan ku samaynaysaa meydadkii uu xalilayay bahalku. Lizzy qiimeyn guud ayay samaynaysaa, laakiin waxay weynaysaa raadka bahalkii xalay soo weeraray gurigan. kadibna waxay imaanaysaa meeshan oo ah meel kale oo qof kale uu ku cunay xalay. waxay baaraysaa dharkii qofka, laakiin way ka weynaysaa wax baaritaan ah. subaxnimadii xigtay, gruubkan halkan ayay ku ciyaarayaan kubadda loo yaqaano golfiga, kadibna ninkani waxa uu fiirfiirinaya kubaddii ka luntay, waxayna kaga dhacday kaynta gudaheeda. isaga iyo saaxiibadiiba waxay soo baadigoobayaan kubaddii ka luntay si ay halkan uga soo qabsadaan, laakiin saaxiibkii ayaa kuley aniga ayaa gudaha galaya. waa uu soo dhaqaaqaya, waxa uuna baadigoobayaa kubaddii uu saaxiibkii ka tuuray, kadibna waa uu helayaa kubaddii ilaa markii dambe saaxiibkii uu ku yidhi waan helay kubaddii. kadibna waxa uu dhiibayaa waraaqadan, laakiin markiiba bahalka ayaa kusoo boodaya, waana libaax aad u weyn. saaxiibkii waa uu soo cararaya isagoo wejiga dhiig ku leh, kadibna saaxiibadii waa ay la yaaban yihiin waxa dhacay. labadii kalena waa ay la yaaban yihiin waxa dhacay ilaa markii dambe ay kaynta gudaha usoo galeen, waxayna soo qaadayaan raadka dhiiggii uu libaaxu jiitay. ugu dambeynna waxay arkayaan meydka saaxiibkooda halkan yaala, waxauna ka goostay laguya gacan. isla markiiba Lizzy ayaa goobtii timi, waxayna arkaysaa raadka libaaxii. waa ay ku guulaysatay markan inay ogaato bahalkan dadka cunaya. taliyihii booliska ayay u sheegaysaa, waxayna ku leedahay halkan libaax ayaa jooga. isla markiiba waxay qabanayaan shir jaraa'id, kadibna waxa ay magaalada oo dhan uga digayaan dadku inay guryaha banaanka uga soo baxaan. booliskuna wuxuu ku amraya qof kasta inuu gurigiisa joogo inta laga xalinayo dhibaatadan. dadkii magaalada dhan waxaa soo food saartay cabsi aad u weyn, kadib markii ay maqleen hadallada uu boolisku ku hadlayo. saxaafadii oo dhan ayaa warka duubaysa, waxayna wareysanaysaa booliskii. magaaladii oo dhan waxay noqotay cidlo, qof kastana waxa uu ku cararayaa gurigiisii. subaxnimadii xigtay, boolisku waxa uu xirayaa xaruntii weyneed ee dadku isugu imaan jireen si looga fogaado inuu libaaxu soo weeraro. xayawaankan loo yaqaano goodirka ayuu halkan soo dhigaya ninkan, waxauna ka yimi wadanka Ingiriiska, isagoo u yimi inuu libaaxan qabto, waana ugaarsada aad ugu fiican ugaarsiga libaaxyada. dowladda ayaa u soo dirtay inuu xaruntii baaga ahayd uu galo. gaarigiisa ayuu soo qaadanaya, waxa uuna kasoo degsanaya qalabkii uu ku qaban lahaa libaaxa. halkan ayuu dhigay birahan si markii libaaxu usoo bodo ay lugaha uga qabtaan. kadibna neefkii uu watay ayuu halkan ku xiraya, waxa uuna rabaa inuu siriq uga dhigo libaaxa si markii uu goodirkan afka u geliyo uu ku dhaco birtan ka hooseysa. isaga iyo wiilkiisuba halkan ayay waxa u yimaadeen inay libaaxan ugaarsadaan. qalabkoodii oo dhanna waa ay wataan. booliskuna kor ayuu kala socdaa, sidoo kale tiifiyadii magaalada oo dhan ayaa jooga halkan, waxayna isku dayayaa in libaaxan caawa la qabto. halkan ayuu ugu jiraa, waxauna fiirfiirinayaa hareerihiisa si uu ogaado libaaxu inuu yimi iyo in kale. ugu dambeyn libaaxii ayuu arkayaa, kadibna waxau la soo baxayaa qorigiisii, laakiin markiiba wuxuu weynayaa codka ilaa markii dambe wiilkiisii uu soo baxay. kadibna waa uu ku qaylinaya, waxau ku leeyahay booskaaga ku noqo, laakiin markiiba wuu soo cararaya si wiilkiisii u badbaadiyo. dib ayuu ugu soo laabanaya meeshiisi, laakiin libaaxii ordaya ayaa kor kaga imaanaya. kadibna waxa uu cunayaa odaygii, laakiin wiilkiisa ayaa soo ordaya, waxauna arkaa aabihiis oo la cunayo ilaa markii dambe uu qoriga ku aadiyay. waxauna doonaya inuu libaaxa dilo, laakiin birtii ka dambaysa ayaa lugta ka qabsanaysaa. halkan ayuu ku nafbaxaya wiilkiisii, kadibna libaaxii waxaa cunay labadoodii. booliskii waxay yimaadeen meesha si ay baaritaan u sameeyaan, iyagoo doonaya inay badbaadiyaan labadan qof ee ugaarsadaha ah. laakiin libaaxii waa uu ka soo cararay meesha, waxauna soo galay magaalada. labadan bas mid ka mid ayuu saaran yahay. gabadhan yarta ayaa arkaysa, waxayna moodaysaa inuu yahay bisad aad u weyn. waa iska qoslaysaa, laakiin markiiba hooyadeed ayaa arkaysaa. dadkii baska saarnaay oo dhan waa ay kala cararayaan. libaaxiina wuxuu qabsanayaa dhammaan dadkii meesha ku jiray oo dhan, isagoo gaarsiinaya dhaawacyo aad u halis badan. dareewalkii baska waa uu xakameyn kari weynayaa ilaa markii dambe uu baskan kale ku dhacay. libaaxiina
waxa uu cunayaa dareewalkii gaariga. Askarigan xabadii qoriga ugu jiray dhan ayuu ku fasaxayaa ciidamadii la socday baqdin darteed, kadibna waxa uu leenayaa ciidamo aad u fara badan. Jahwareer ayaa ku dhacaya ciidamadii waxayna ogaanayaan meesha xabadda uga timaaday. Dhacdadana waxa ay ku riday booliskii magaalada madax xanuun. Subaxnimadii markii la gaaray taliyihii booliska waxa uu tagayaa ninkan, waana Jack oo hotelkiisii jooga. Kadibna waxa uu ku leeyahay dhacdadan aadka u foosha xun ayaa dhacday, waxaana ka codsanayaa inuu libaaxan isagu ugaarsado. Waa uu soo raacayaa Jack waxaana imaanayaa meeshii uu xalay fal ka dhacay. Baaritaan ayuu kaynta ku samaynayaa waxaana arkayaa qofkii uu xalay bahalku cunay. Kadibna birtan ayaa looga soo jiidayaa waxaana ku leeyahay halkan ii dhiga. Habeenimo ayaa la gaaray. Jackna waxa uu doonayaa ninkii uu xalay cunay bahalku inuu isaga laftirkiisa ku ugaarsado. Kayntii ayuu soo galay isagoo iska ilaalinaya sanqar inuu muujiyo. Waxaana doonayaa inuu libaaxa caawa halkan ku dilo. Liisi iyo taliyihii ciidanka halkan ayay joogaan waxayna ku sugayaan banaanka. Kaamiradiisa ayuu ku fiirinayaa kaynta oo dhan waxaana baadigoobayaa libaaxa ilaa markii dambe uu afkiisa ku sameeyay codka lo'da si uu bahalkan u yimaado meeshan. Laakiin markiiba waxa uu imaanayaa eygan waxaana soo raacayaa codkiisa. Eyga ayuu fiirinayaa laakiin nasiib darro xagga dambe ayuu uga imaanayaa libaaxii. kadibna xabadaha ayuu ku dhufanayaa Jack. libaaxii waa uu cararayaa waana dhaawac. waa uu soo dabagelayaa isagoo gaarigiisa wata waxaana doonayaa inuu libaaxa dilo. libaaxii waa uu ka cararayaa. Jackna waxa uu daba joogaa libaaxa. dhowr kale oo xabadood ayuu ku dhufanayaa laakiin waa uu ka baxsanayaa libaaxii meesha. Jack waxa uu ku khasban yahay inuu libaaxan daba galo maadaama uu dhaawac yahay, waana wadada kaliya ugu fudud inuu libaaxan ku dilo maanta. taliyihii booliska ayuu u sheegayaa. Liisina waxay maqlaysaa hadalkooda. Jack wadadii ayuu soo raacayaa halka Liisi ay soo carartay waxayna u tagaysaa ninkan si ay u caawiso. Jack waxa uu soo galayaa deyrkii jaamacadda ilaa markii dambe ay u timaaday Liisi waxayna ku leedahay waa ku caawinaya laakiin markiiba waxa uu siinayaa baaskooladan. way soo karayaan jaranjarta. Liisina waxay diyaarsanaysaa baaskooladeedii. waa ay soo dabagelaysaa Jack waxayna doonaysaa inay mishinkan caawa ku guuleystaan. albaabkii jaamacadda ayay iska soo furaya ilaa markii dambe ay gudaha u soo galeen waxayna ka raadinayaan halkan libaaxii. ugu dambeyn waxay arkayaan qof ka mid ah ardaydii jaamacadda oo libaaxii halkan ku cunay. qofkii meydka ayuu dul imaanayaa Jack isagoo aad uga naxsan laakiin libaaxii ordaya ayaa kasoo galaya xagga sare. waa ay kala cararayaan dhammaantood. libaaxiina waa uu yimi. Liisi baaskoolada ayay soo qaadanaysaa halka libaaxii uu ku booday Jack waxaana cunayaa Jack. Jack waxa uu dhigayaa gacantiisa laakiin baaskoolada ayay dhowr xabo ku dhufanaysaa Liisi. libaaxii ayaa soo baxsanaya laakiin way ka soo cararaysaa ilaa markii dambe ay soo gashay kursigan waxayna ka galaysaa gudaha. libaaxiina wuxuu isku dayay inuu kala soo baxo. isla markiiba qorigiisa ayuu soo qaadanayaa Jack waxaana doonaya inuu libaaxa dilo isagoo ku aadiyay hal xabo ayuu ku dhufanayaa balse libaaxii kuma aysan dhicin. waa uu ka cararayaa. libaaxiina wuxuu soo baxsanayaa Jack. Jack waxa uu ka soo galayaa meeshan hoolka si uu halkan ugu badbaado laakiin libaaxani waa uu daba joogaa ilaa markii dambe ay Liisi soo kacday waxayna soo qaadanaysaa baaskooladeedii si ay uga badbaadiso saaxiibkeed. telefoon ayay diraysaa waxayna la hadlaysaa booliskii si ay ugu sheegto in xaalad xun halkan ka jirto si ay ugu yimaadaan boolisku. Jack waa uu soo cararayaa waxaana soo galayaa qolkan si uu badbaado ugu helo. ilbaabka ayuu iska soo furayaa ilaa markii dambe uu libaaxii soo dabagalay. Liisina waxay arkaysaa libaaxii iyadoo baaskooladeedii ku aadinaysaa laakiin waa uu kusoo boodayaa. Liisi baaskooladii ay haysa ayay ku tuuraysaa kadib markii ay xabad ka weyday. libaaxiina waa uu kusoo jeesanayaa. way ka soo cararaysaa ilaa markii dambe ay soo gashay qolkan waxaana isku soo xiraysaa albaabka qolkii halka Jack uu weli baadigoob ugu jiro libaaxii isagoo qorigiisa wataa. laakiin libaaxii ayuu arkayaa intuusan qolka gelin. isla markiiba qorigii ayuu ku aadinayaa libaaxii laakiin libaaxii waa uu kusoo ordayaa. isla markiiba Jack waxa uu gadaal u galayaa qolkii laakiin waxa uu ka dhacayaa jaranjarta. dhulka ma uusan gaarin. libaaxii ayaa gacanta ku dhigaya ilaa uu markii dambe gaarsiiyay nabare aad u culus. dhulka ayuu kasoo dhacayaa. ugu dambeyn qorigiisana waxa uu ka lushaa xagga sare. isla markiiba dhiiggii ayuu iska xirayaa waxauna soo gaarsiiyay dhaawac ka badan kii hore. waa uu soo gurguuranayaa isagoo oo raadinaya meeshii uu ku badbaadi lahaa. markii dambe waxa uu helay qolkan waa uuna soo galayaa. Jack ilbaabkii ayuu iska xirayaa ilaa markii dambe uu la soo baxay suunkan kadibna waxa uu ku xirayaa ilbaabkii si uusan libaaxa u soo gelin. dhiig fara badan ayaa ka socda Jack ilaa markii dambe uu shaafadahan soo qaatay waxauna iska daweynayaa nabarkii laakiin markiiba waxa kusoo duldhacaysaa Liisi oo xagga sare ka timi waxayna kasoo cararaysay libaaxa. isla markiiba Liisi waa ay soo kacaysaa waxayna u imaanaysaa saaxiibkeed. waa ay fiirinaysaa waxayna ka naxaysaa wejigeeda maadaama uu dhaawac halis uu soo gaaray. libaaxiina waa uu kusoo dhawaaday. Liisi waxay soo qaadanaysaa kiimikadan kadibna waxay ku daadinaysaa halkan iyadoo dhiigii ka dhaqaysa si uusan libaaxa ugu soo dhawaan laakiin libaaxii markiiba waa uu ogaaday meesha ay joogaan. ilbaabka ayuu isku dayaa libaaxu inuu soo jabiyo. booliskiina waxa uu yimi goobta. mar kale albaabkii ayuu soo qaraacayaa libaaxii waxauna doonayaa inuu gudaha usoo galo laakiin markiiba way soo baxaysaa. ugu dambeynna waa uu ku guulaystay inuu libaaxii gudaha usoo galo. halkan ayuu libaaxii marayaa waxauna dhinac marayaa Jack. Jack waa uu isku celinayaa naqaska si uusan u ogaan libaaxa meesha uu joogo. isla markiiba oxygentan ayay soo qaadanaysaa sunta iyadoo afka gashatay koofarkan si uusan sunta u gaarin. laakiin markiiba libaaxii ayaa kusoo jeesanaya isla markiiba waxay ku buufinaysaa suntii waxayna ka gelinaysaa afka. libaaxiina waxa uu isku dayayaa inuu meesha kala soo dego laakiin markii dambe libaaxii waa uu wareeray waxaana jirkiisa gashay suntii. gabadhiina sidoo kale waa ay wareertay waxayna weynaysaa meel ay ka baxdo. ilbaabka ayay isku xirtay ilaa ay markii dambe aragtay baalkii ay afka gashan lahayd oo muraayadihiisii ay jajabeen. ilbaabka ayay qarqaraacaysaa waxaana ka
dhamaatay tabartii waxay doonaysaa inay meesha kasoo baxdo laakiin markiiba saaxiibkeeda ayaa gudaha usoo galay waxauna raadinayaa saaxiibtii Lizzie. Jack ayuu arkayaa halkan yaala kadibna waa uu la hadlaya laakiin waxa uu sheegayaa in halkaa ku jirto ilbaabka ayuu iska furaya waxauna ku dhigayaa saaxiibtii waxa uuna laabta gelinayaa saaxiibtii laakiin markiiba libaaxi ayaa kusoo boodaya kadibna waxa uu afka gashanayaa saaxiibkeed waxa uu doonayaa inuu cuno. Lizzie waxay soo qaadatay birtan dheer kadibna waxay ka gelinaysaa qoorta ilaa markii dambe ay afka kasoo saartay libaaxina halkaas ayuu ku dhintay waxauna ku dhacay dhulka. ugu dambeyn booliiskii ayaa yimi goobta waxayna kasoo saareen libaaxii meydka ahaa goobtii uu ku jiray. mishinkana waxaa dhamaystirtay Lily waa ayna ku guuleysteen libaaxii inay meesha ka saaraan. daawadayaal filimkeeni maanta halkaas ayaan kusoo gabagabeynay waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka fadlan ha ilaawin muuqaalka like saar haddii aad ku cusub tahay channelkana subscribe noo saar.